kulanti wacan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee Somali Press kuna soo dhawaada wararkeena qodobada xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka ku socda kooxda Al-Shabaab oo waji cusub yeeshay iyadoo ciidamada dawladda iyo shacabka deegaanka ay guulo la taaban kara ka gaareen Al-Shabaab waxaan eegi doonaa ciidamada dawladda oo howlgalo ka wada deegaanadii Al-Shabaab laga saaray ee Hiiraan abaabul dagaal oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo shacabka oo xilligan ka socda deegaano ka tirsan Galmudug xilli shalay laba diyaaradood oo siday ciidan iyo sanad military ay ka degtay Dhuusamareeb waxaad kaloo warkeena ku daawan doontaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo jawaab kulul hawada u mariyay afayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere isaga oo sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay ku jiraan kooxda warar ku saabsan ayaa daawan doontaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobana waxa uu shuruud adag hordhigay xubnaha Jubbaland ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya qodobadaasi oo dhan ayaad warkan ku daawan doontaan waa Arbaco taariikhda ay ku beegan tahay 21 September 2022 hadaad nugu cusub tahay nugu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nugu xiran adigoo subscribe saaraya kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararkan halkan soo dhigna aad u hesho u diyaar garow faafahinta wararkaasi aan ku bilaabo warkeena wali waxa gobolada dalka ka socda dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee looga sifeynayo guud ahaan dalka iyadoo saacadii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay qasaaro xoog leh gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab dagaalo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada dalka ayaa waxa la soo warinayaa in kooxda Al-Shabaab looga dilay maleeshiyaad badan wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac taliyaha ciidanka dhulka General Biixi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odoba Yusuf Raage oo ka warbixinayay howlgaladii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab looga saarayo dalka ayaa sheegay in kooxdaasi la gaarsiiyay jabkii ugu xooganaa abid waxaana ay sheegeen in laga dilay kooxda Al-Shabaab in ka badan 300 oo dagaalame waxayna sheegeen in tiro intaas la egna laga gowracay kooxdu sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa sheegay in weli uu socdo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxaana ay sheegeen in ay isgarabsanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka dhinaca kale ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan commandoska Danab iyo Gorgor oo ay weheliyaan ciidamada deegaanka ayaa howlgalo ka wada deegaanadii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan ee laga saaray Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga ayaa hogaaminaya howlgalada ciidamada ay ka wadaan deegaanada dhaca Hiiraan ee laga saaray Al-Shabaab ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalada ay wadaan ku baadigoobaya xubno ka tirsan Al-Shabaab waxa ayna ciidamada howlgalo xilligan ka wadaan deegaanada kala ah ceel la helay Nuur Fanax Beerxaane Baardheere Booco Garasyaani iyo deegaano kale oo dhaca jiinka webiga Shabeelle Hiiraan waxa ka socda howlgalo saf balaaran ah oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka kuwaas oo doonaya in deegaanada gobolka Hiiraan ay ka joogaan Al-Shabaab laga saaro qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan wararkeena kale hadaan eegno iyadoo Al-Shabaab uu ku socdo dagaalo dhowr jiha ah ayaa haddana dagaalkaasi waxa uu yeeshay waji cusub dawladda federaalka Soomaaliya laba diyaarad oo kala siday ciidamo aad u hubaysan iyo sidoo kale sanad military ayaa ka degtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ciidamadan oo boqolaal ah ayaa daba socdo ciidamo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka degayay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kuwaasi oo ay beesha duduble ugu talgashay xoreynta deegaanadooda oo ay muddo 15 sano ku dhow haystaan Al-Shabaab waxa si xawli ah u socdo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadaan beelaha deega Galmudug iyo Hirshabeelle iyadoo ay jirto in ay ku soo daba jiraan maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland waxaana meesha ka marnayn garabka dawladda iyo maamulada kuwaas oo isla gartay in laga faa'iideysto kacdoonka shacabka wararkaasi intaan ka bixin madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa si adag uga jawaabay hadalkii afayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo sheegay in uu u gafay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed Cali Dheere ayaa sheegay in beelaha kacdoonka wada ee Al-Shabaab la dagaalamaya ay yihiin kuwii isbaarooyinka dhigan jiray ee Al-Shabaab ay dadka ka hortaagnaayeen sida uu hadalkaasi u dhigay Yuusuf Dabageed ayaa gif cad ku tilmaamay warkii Cali Dheere
oo beelaha la dagaalamaya ee xawaadle iyo habargidir ku tilmaamay tuugo dadka dhici jirtay gabdhahna kufsan jiray. hadalka madaxweyne ku-xigeenka oo jawaab u ahaa kii Cali Dheere ayuu si weyn ugu dheeraaday in ninkaasi uu islaamnimada been ka sheegayo oo diinta islaamka uu ku been abuuranayo isagoo banaynaya in dadka Soomaaliyeed lagu laayo. ugu dambeyn Yuusuf Dabageed ayaa Cali Dheere ugu baaqay in toobada alle uusan ka quusan dadkan Soomaaliyeedna uu dhibaatada ka dhaafo. haddii taasi laga waayana wuxuu wacad ku maray in dadka Soomaaliyeed ay al-shabaab soo afjari doonaan mar aan dheerayn. ugu dambeyn haddaan eegno madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa dhowaan magaalada Muqdisho kulamo kula yeeshay xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka ka soo galay Jubbaland. xubno kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu xildhibaanada kala hadlay in xildhibaan kasta uu beesha ka keeno ciidamo iyo weliba saanadooda hubka si ay markaasi qayb uga noqdaan dagaalka la qorsheynayo in al-shabaab looga saaro deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo. madaxweynaha Jubbaland ayaa xildhibaanada u sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn inuu hubeeyo beelaha maadaama deegaanada ay ka dhaceen dagaal beeleedyo lagu hoobtay, wuxuuna taasi beddelkeeda sheegay in beelaha ay dagaalka kaga qayb geli doonaan hubka ay hadda haystaan. Axmed Madoobe ayaa xildhibaanadu u sheegay inuusan hadhow qaadi doonin eedda la xiriirta wixii awood haysi ah ee dhanka federaalka ah haddii aan loo midoobin xoreynta deegaanada Jubbaland oo qaarkood si buuxda gacanta ugu hayso kooxda al-shabaab. sida aan xogta ku helnay, Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada ku casuumay inay ka soo qayb galaan kulan ka dhacayo Kismaayo kaasoo looga hadli doono sidii kooxda al-shabaab looga saari lahaa dhammaan deegaanada Jubbaland. muddo 10 sano ah ayuu Axmed Madoobe ku hanjabayay in uu al-shabaab ka saari doono deegaanada maqan, balse weli ficil looma rogin arrinkaasi. kulankii uu xildhibaanada la yeeshay ayaa waxaa xusid mudan in ay ka maqnaayeen xubno muhiim ah oo saameyn ku leh beelahooda. ololaha uu wada Axmed Madoobe ayaa ku soo aadaya xilli qaybo ka mid ah Soomaaliya uu ka curtay kacdoonka looga soo horjeedo al-shabaab, wuxuuna kacdoonkaasi hadda si rasmi ah uga bilowday Hirshabeelle iyo Galmudug. kooxda al-shabaab ayaa dhowaan ku hanjabtay inay la dagaalami doonto qabiil kasta oo la safta dowladda federaalka. madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse ayaa ballan qaaday inay hal sano gudahooda ay al-shabaab kaga saari doonaan guud ahaan Soomaaliya. waanaga intaa warkii aad ka daawanayseen Soomaali Barees oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna ee nabadgelyo.